لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaannu halkan mu'tamarkii lixaad ee maalintiisa labaad inaannu ku qaadanno muxaadaro la magac baxday almar'atu saalixa uu noo soo jeedin doono sheekhayga jaliilka ah sheekh maxamed rishaad oo degan dalka Canada. muxaadaradaas oo ah muxaadaradii koowaad muxaadaradii ugu horeysay ee si khaas ah ay u qaataan gabdhaha muslimaadka ah, gabdhaha Soomaaliyeed ee degan dalalka Scandinavia. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto mid joogta sanad kasta inay gabdhaha muxaadaraadka ay soo gaarka u qaataan. muxaadarada maanta ciwaankeeda marka waxa weeye almar'atu saalixa, gabadha wanaagsan saalixada ah. marka insha Allah muxaadarada waxaan noo kala qaaba dhigi doono oo noo sharaxi doono sheekh maxamed rishaad. sheekhan ku soo dhaweynaya فليتفضل مشكورا أيها الأخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلوم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا يا أرحم الراحمين. gabdhaha walaalaha ee halka iskugu yimi, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع aan doonay maanta inaan runtii ka hadlo, موضوع aan rabo weeye haddaan waqti u helo xoogaa inaan ka hadlo. mar'a الصالحة haddii la yidhaahdo mawduucu dhowr arrimood ayuu lu ku yeelanaya. wuxuu ku yeelan doonaa إن شاء الله تعالى حق قبل مسلمة أي لا هاي حق قبل مسلمة لقول لي هاي أفكار مجرمين ما أنت قبل مسلمة كركة وريجية كيد كأعداد مسلمين تو أي أول جيان هذه الشرالة إن كل دقة لمان حيالا فربضن أي أوبا هنتين لقى حضر قبل muslimadaahi ee Soomaaliyeed waa hooyo. markaan arko gabadha Soomaaliyeed waa hooyo aan leeyahay hooyaday baa igu soo dhacday. غفرها الله لها. waa gabar weeye inantaydii igu soo dhacaysay. waa walaal weeye. waa eedo weeye. waa habaryar weeye. waa xaas weeye. marka mid walba waxay leedahay xaq, waxayna doonaysaa in xaqeeda loo gudo. waa hooyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku leeyahay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إلهي وحو دردار سبحانه وتعالى إنسانك لبديسي والد إنه حق ودا إلى عليه إنه إحسان سمعي وأوسم فله محايا لي متكستا إيه سعودة هو يوم بالغا سوهاس قاضي. marka hooyadaas way xambaartay caloosheeday ku xambaartay iyadoo ku dhibtoonays iyadoo ma tagays
iyadoo wallacaysa, iyadoo oomaysa, iyadoo rafaadaysa. waxay dejisay iyadoo rafaadsan oo laga yaabo inuu u keeno marka ay dhalayso inay dhimashaba gaarta laga yaabo ay ku dhimata laga yaabo. way nuujiso dhiiggeedii bay nuujisay, huggeedii bay siiday. 30 bilood ayuu isku gaaray inta uu iyada tafteeda ka fuqayaa. ilaahay